الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمان dadka ku xiran channelkayga waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan isu soo noqod wanaagsan ma sha Allah. inta aan hadalladana bilaabin oo aanan barnaamijkayga bilaabin oo aanan waxa aan ka hadlayo aanan bilaabin marka hore waxaan idin ka codsanayaa inaad gambalelka furataan si aad markiiba u heshaan waxa aan soo dhigo halkan. waxaan idinka rajaynayaa inaad ii saari doontaan like, subscribe, commentiga hoos noogu reeba ma sha Allah. youtube-ka inaad kala kicisaan ayay idinka codsanaysaa abaayadiin geeyo ma sha Allah. waan kala daahnay laakiin insha Allah bacda ramadaan waa isku taxnaan doonaa haddii ilaahay qadaro. taas kadib waxaan caawa ka hadlayaa waan jecelahay inaan wax yar ka iraahdo anigoo aanan doonaynin inaan ku fogaado. channelkayga waxaa ka reeban qof lagu caayo, qof lagu dhibaateeyo, ama beelaha Soomaaliyeed beel ka mid ah lagu dhibaateeyo ama shakhsi lagu dhibaateeyo lagu taagad gareeyo. arrinta walaasheen Safiya Tusmo oo runtii in muddo ah la socday aana ku jaha wareeray oo meel aan u qaado aan garan waayay. si kastaba ha noqoto wiilku waa wiil Soomaaliyeed, gabadhana waa gabar Soomaaliyeed, laakiin annaga dhan waxaa naga ooyinaya dhibka gabadha ku dhacay ee la ooyeyso. si kasta waxa u dhacaan sax iyo qaladba. kulley gabadha waa gabar waa la nugushahay. waxaan arkayay dad badan oo leh way jeclaatay wiilka. anigu guur laftigayga hadda ma sheegayo guur goos wax cad lama hayo laakiin kaba soo qaad gabadhii wiilku xiriir bay soo lahaayeen. waxaan waa dumar ma jeclaan kartaa wiilka inay jeclaatay wiilka. haddii ay jeclaatay jacaylku wax ceeba ma aha, waa wax annaga dhan baa nala ku soo dhalay jacaylka, wax ceebana ma aha. laakiin waxaad moodaa jacaylkii in waddadiisii laga weeciyey oo meelo kale lala aaday ayaad moodaa. jacaylku waa wax jira ilaa xaawiye aadan buu soo jiray, innagaa nala ku dhalay, annaga laftigeena awlaad ku dhalnay jacaylka oo ku soo guursanay. jacaylku maxabbo iyo naxariis iyo wanaag iyo saldhig qoys xalaal ah inuu ku salaysan yahay warta ku fiican yahay. laakiin ma garanayo waayahan dambe jacaylka casriga oo yimid aniga waa la iga badiyaa. jacaylka casriga oo yimid waa la iga badiyaa. teeda kale waxaan arkaya bulsho leh gabadha caayaysoo leh islaanta weyn konton jirka habarta wuu leh. cayda wax fiican ma ahan. 100 sano hadday jirto qofta waad jeclaan kartaa, kama uusan guurin jacaylka waad jeclaan kartaa qofta, ceeb ma aha. laakiin jacaylka waxaa la rabaa inuu saldhig u noqdo, jidka toosan inuu saldhig u noqdo. si kastaba wixii qaladahay oo dhacay way dhaceen. walaasheenna waxaan leenahay iyadana inaad sabirka kaashato. kule wixii kugu dhici lahaa way kugu dhaceen, hadda ma soo noqonayaan. in maalin walba kolba qolo cod soo qaadato la yiraahdo cabdi wuxuu yiri Safiya waxay tiri, cabdi wuxuu yiri Safiya waxay tiri, wax macnaha ay soo kordhinayso runtii aniga uma jeedo. walaalkay cabdin waxaan leeyahay asaga waa nin rag ah, markasta asaga waxa la rabay arrinta inuu xasiliyo, asaga ayaa looga baahnaa. Safiya walaashay haddii aad wiilka jeclaatay jacaylka aniga ceeb ma buu arkaba, jacaylka laftigiisa raba aniga ceeb u arkinba. laakiin jacaylkan casriga oo hadda aan aragnay wax hadda socdaanba jacayl ba ahayn, wax isku danaysi ah. maalmo yar dana yar la kala leeyahay baad arkaysaa iyadoo la isla qoslayo social media la soo galaayo la leeyahay kalama hurudno uliya diirkeed bana dabayshu nama kala dhex marto beerkaanu isu bixin lahayn. maalmo yar dabadeed waxaad arkaysaa labada qofood oo qof walba ooyayso dumarku ha u badnaadaan. annaga dumarka haddaan waxaadna moodaa magaca jacayl haddaan maqalno waa isdhiibnaa. waxa wax jacaylba waaba anaga kaligeeba, magaca jacaylba haddaan maqalno waaba isdhiibnaa. ma xuma. raggii Soomaaliyeed marka waa kala qaybsan yahay. kuwa jacaylkii laftigoodu wax ka yaqaano oo gabadhii ay isjeclaadeen haddii ayadu jeclaadna jacaylkii la wado oo asaga laftigiisa dhinaciisa ka qaata,
haddii kalena labaduba ay jacaylka wadaagaan marka horeba ama wiilka xaggiisaba uu ka yimaado oo uu ku daryeelo gabadhii haddii ay jeclaato ama ooradiisa ay noqoto ama gabar maaragtay sheeko wadaag ay yihiin oo sheekadii jacayl ay tahay oo ku xushmeeyo oo ku qadariyo oo wax kasta oo sharafteeda wuxuu dhibi kara gabadhii ka ilaaliyo oo maxaan ku idhaha jacaylkii halkaas la isla soo wado marka dambena saldhig u noqda qoys lagu baraaro laakiin waayahan waxaan arkay jacayl social mediaha ku koobanoo aanba dhuunta sii jirin jacayl aanba halkaas sii jirinoo ma aragtay laabta aan jirin laabto intaabaan halkaas baan wax ka maqlaabay dadku dhihi jirin waxaad moodaaba halkaas in wax laga maqlo oo maxay haysataa xaqiiqadan ka warramaya maxay haysataa gabadhu ma baasaboor bay leedahay ma dibadday ka timid ma ganacsataa maxay haysataa halkaasuu u dhuun daloolaa danihii markaa meesha uu soo galay markii uu ka waayana gabadhiiba ma aha shalay uu rabay 150 magac buu u yeelaa 150 magac buu u yeelaa runta markaan idiin sheegana jacaylka hadda jire baby ku dhisan baby aniga runtii markaan idiin sheego kullay adinkuna fikir gaara baad leedihiin oo waa la kala duwanaan karaa aniga kaas wuuba iga soo boodayba waayo after 1 week dadkii shalay baby islahaa baraha bulshada gabadha iyadoo ka calaacalaysa soo gelaysaa war waxa ka salaad wax gees ka qabalayeen dadka shalay waa ku iscimbaarsanaay kala ma hurudno wadnaheena isku xiran uliya diirkeed baan nahay dabayshuna ma kala dhex marto dadkii shalay lahaa gabadhii bir waxay ku soo galaysaa sidii loo jabi jiray baan u jabay iyadoo kula cabaadaysa marka jacaylka hadda jiro anigu waan garan waayay waxa uu ka sameeyay yahay baan garan waayay baan waa jacayl halkaa kaliya ah ma baa wax laga maqlaa naxariis male xishood male hataa dadku marka iyagu isticlaan jiray ay kala tagaan ama xiriir isku soo jeclaadaan oo dad sheeko wadaag ahaayo jacaylka dhexdeeda ama ha isqabaanay markii la kala tago qof waliba qofta kale wanaagii hore fiirisaayo waxa hadda jira ma fiiriso saasay ahaan jirta bariga hore haddii gabadha wiilku si kasta u jecel yahay ay kala tagaan ayagoo xiriir leh wuu ku qadarin jiray wuxuu jiray jacaylkaygii hore gabadhu waxay yiri jirtay jacaylkaygii hore hadday iska soo horbaxaan waa is salaami jireen oo dadku way isaga sokeeyeen oo waa la isku xamin jiray labadaas qofood wallahi bari bay xiriir lahaa jireen way isku fiicnaan jireen calafka kala geeyay jacayl baa ka dhaxayn jiray la jiray hadda sheekadaas ma jirto baraha bulshada la soo galaa baby idoo isleeyay xeer kadibna gabadhii ooyeysa ku soo galayso kale balaaya bay u dhacdo waxaan u galay xerada balaaya u galay halkaas oo asaguna 120 video ka hayay iyo waxa lagu wuxuu sawir ka hayay iyo waxay sheeko wadaageen boo halkaas soo dhigaya kaasuu leeyahay sidaan bay bari itriyo waa la iska daba qaadanayo YouTube la shaqo u soo baxdayo waxa la leeyahay coming soon hebel baa soo hadlaya coming soon hebla soo hadlayso qaybtii labaad way soo dhacday qaybtii saddexaad way soo dhacday qaybtii afraad way soo dhacday waxba bal hadda arinta safiyo bil bal la calaajinayo la iska daba wareejinayo ilaa ay haddana wax natiijo ah oo laga gaaray ariga ma aanan arag عبدي بعد كان صادوبة صفية كان صادوبة نبى أوغا شيكادو soo hadlay gabar baa halkan ka soo hadashay ilaa hadda waqti xaadir kan bilbal iska daba wareegay wax meel la saaray ariga ma aanan arag marka Safiya waxa leeyahay walaashay wixii kugu dhici lahaa way kugu dhaceen arintan waxay ila egtahay wiil aad aamintay oo adigu isu dhiibto nafti u hibeysay inuu wiilkaayaa nod aniga sixir jiro iyo sixir ma jiro iyo midna ma dhahayo aniga qof wax jeclaatay jacaylkii u daacadahay isdhiibtay baad aniga ila muuqataa Safiyo qofka markaana nin way jeclaan kartaa laakiin jacaylka waxa la rabaa inuu ku salaysan yahay oo xad u leeyahay mid akhlaaq ku salaysan tahay inuu noqdo ayaa loo baahan yahay jacaylku ma jiro ma dhahayno jacaylku wax jiro waay walaalkay Cabdi Cajuuna waxaan leeyahay walaalow gabadhaas adinka waxa idinka dhaxeeyay ogay haday shal qalbigeeda ku siisay inay sida shal qalbigeeda ku siisay aad u xurmayso oo asturto oo ma aragtay alla uga xishootay ahayd marka aniga waxaan ku maleynayaa inaad noqotay waraabo la jeclaaday waan ku maleynayaa walaalow inaad noqotay marka ma sha Allah waxay baan kale yahay marka arintaas Safiya tusu Safiya kaya min tafadahan kore war Safiya kaya min tafadahan kore أبس أشعلها تيو أبرز دمر كعون
abeesay jeclahatay oo abristu markacu weliba arxan laha webaha ilmada haadiqu afxuma kuhu geystay oo ceebahad lahay amarka allama hooye kuma gelin axsan amarka allama hooye kuma gelin axsan asaaseedi dohona wuxuu manta gabsanaa asaaseedi dohona wuxuu manta gabsanaa xaqiiqatan aniga bishaas la iska daba wareejinayay arrinta Safiya Tusmo ma aanan ka soo hadlin waxaan jeclaa inaan ogaado arrinta meesha ay ku biir shubato laakiin bil xaqiiqa ilaa ay hadda ma hayo arrintii meel ay saldhigtay oo dhab ah ma hayo waxaan arkaya xataa meelaha qaar la soo warinay nin hadlayoo leh la leeyahay waa Safiya walaalkeed inuu wax dilo rabaa horta maxaa wax ku dishaa maxaase wax lagu dilaa gabadha iyo wiilku haddii ay isguursadeen oo guur meesha jiro horta guur ma qarsoomo wax aan qarsoominba guur baa ka jira حتى يوم هذا إسقرصدان ومهر قرصودي أي وضع قلان حتى الشيخ واحد إسكوحري هدو بنتي مرخاتي بالهلية لبضا خفض أصحاب بيلها ويلكن أصحاب بولها قبلنا أصحاب بيلها أصحاب تودي وقصب وينو قف كميدا أرنتا سوقاتا حتى قبل بدنا واحد جيران مقالنا هذا أنا كنا هايو نيروبي قبل فرب بدنا أنت إن قرصدان أيوة إلما هيستلا أركايو نينكي قرصدي وقوني وأوجي إنه أصلا قبل ناس قرصدي وأصلا إلما هكذا قريو دقيقة بيلاين maalinta dambe ninka inta qadartii rabbi ku timid oo ninka dhintay markaa soo istaagayso qof ama asxaabtiisii ama ehelkiisii leedahay ninkani gabadha wuu qarsan jirayo anaa ogaayo maalintaas uu kursado waa la socday xaaladiis ama gabadha eheladeeda ama asxaabteeda kuwa kamid ah yiraahdaan anaga ogayna wuu qarsaday baa la helayaa marka qariska gabdhaha inta badan la qariyana hadda inta anigu aan xoogaal ahay oo arkay oo xoogaalka u ahay waxa kalifa wiilkiyo reer kala leh marka reerkii kala uu ka baqayo inuu ka burburo oo gabadhii kala carruurta u daadiso oo ka cararto markaas bay ragguna way iska damac badan yihiin mid kale rabaan inay guursadaan way iska qarsadaan oo way dhacday oo taas ilmo badan oo lagu dhalay reer hadda ku degan baan anagu ognahay marka hadii meesha guuriyay kulay waxa la heli doonaa dadkii xoogagaalka ahaa hadii walaashay sida aniga carabkeeda aan ka maqlay anigu hadda guur kama aanan maqal carabkeeda relationship wax la yiraahdo ka maqlay dadku sheeko wadaag way noqon karaan laakiin sheekadu intii anaga aan isla ogin ama aan naqeenay hadii ay ka dhaafsiisan tahay anigu kama aan maartay arrimaha ma galay marka hadli karo laakiin anyway waxaan ku leeyahay Safiya dibka kugu dhacay Allah ku saqiro walaalay anigu horan uga soo hadlin hadda kadib kama hadlay arrintaada intaan bay insha Allah iga ekaan doontaa hadii Ilaahay qadar waxaan rajaynayaa in arrintaas ay ku dhamaato ayadoon dhiig daadanin dibna uusan dhicin مصالح غير قبتين يكون معتها أيام رجينية إن شاء الله تعالى خير بدن